السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرلوات وإذن سلامي دمان أصحابتي ذاكو حرين channelka إن شاء الله waxaynu soo socday mataqaanay cashiradii taxanaha kaynu soo bilaabnay course-ka cytology-ga wixii dhigta ka soo doodnay cell-kaynu ka soo doodnay inuu soo bilaabnay cytology-ga cell-ka haddaynu wax iska xasuusino bal cashirkii hore waxaynu soo qaadanay cell-kaynu soo qaadanay cell-ka waxaynu soo kala qaybnay laba qaybood oo aad u waaweyn horta wareen oo soo qeexnay cytology-gi ee ku qeexnay waa barashada cell-ka cell-kiiban hadoo laba qaybood soo kala qaybnay qayb eukaryotic iyo qayb eukaryotic haddaba inagu waxaynu soconay markaynu mid kasta soo ogaanay mataqaanaa wuxuu ka samaysan yahay iyo wuxuu mataqaanaa taageeraba inagu soconay waxa focus ka saarayna eukaryotic oo saddex qaybood waaweyn isagoo aan soconay focus-kaynu saaraynaa oo insha Allah mid chapter baan ka dhigaynaa cell membrane-ka cytoplasm-ka nucleus-ku ahaa cell membrane-ka markaynu joognay anagii saddex buu ka samaysan yahay protein fats proteins iyo carbohydrate insha Allah waxaynu soo qaadanay fats bay soo qaadanay fats-na anagii saddex u soo kala saarnay phospholipid cholesterol iyo neutral anagii soo kala qaadnay saddexda maanta insha Allah waxaynu ugu xigi doonaa keen labaad ee ah proteins haddaba proteins maxay yihiin inuu si deep loo dhigan doonaa maanta dib la yiraahdo kaas la socdaa shaqo insha Allah okay proteinadu waxay ka sameeyaan adoo proteinadu waxay noo sameeyaan jirkeena weedkeena waxa la yiraahdo proteinada waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood waaweyn integral iyo peripheral baa loo kala qaybiyaa okay hadaynu soo qaadanay ka ugu horeeyo integral hadda muxuu yahay integral wuxuu noqonayaa proteinada ka gudba cell membrane-ka proteinada ku gudba ayaa la oranayaa integral protein haddaba shaqadoodu maxay tahay waa bombs oo waxay bam garayaan waxbay mataqaanay small ions-ka qaadaan ay ka mid tahay sida sodium ay ka mid tahay potassium kuwaas oo kale ay qaadaan meelneedi ay bam garayaan okay waa structure channel waa channels oo waxay ogolaadaan small ions-ka oo molecules ama waters-ka waxa soo dhan ogolaadaan waa receptor waxa la yiri mataqaanay waxay receptor garayaan imka jirkeena markaynu pharmacology ku baraynay jirkeena meel kasta oo kamid ah receptor buliya receptor-kaas oo ah meesha ay soo qabsanayso wixii loogu talagalay okay waa link karo connected waxba isku xiriirayaan proteinadu sidoo kale waa enzymatic oo markay mitochondria u sameynayso ATP base-ka waxay adeegsanaysaa proteins ma leeyahay haddaba structure bay xataa sameeyeen baa leeyahay structures means waxay sameeyaan structures ku xiran oo protein ay sameeyaan dadna hore ka soo slide-kaas hadda waxaad ogaataa lagu yiri markaynu soo mareynay structural channel-kan shaqooyinkooda aha haddaba markaynu joogno structural channel-ka waa habka aniga oranay small ions-ka mataqaanay molecules-ka sida water-ka kale mataqaanay iga kala gudbaa aniga oranay channel-ka okay isaga laftiisa laba mayer kala qaadi doonaa leak channel iyo gather channel leak channel hadaba mid furmi kara yiri oo mid khaas ah kana waxa la yiri uu furmaya leak channel wax markasta furan weeyaan oo sida albaabkaas oo kale markasta uu furayo soo wasaayo kale okay albaab iska furan oo kale ka soo qaad guri isagoo iska bilaa albaaba oo reed iska furan weeyaan leak channel oo si gudbaa markasta wax iyo gather channel weeyaan una xidhnaan karaa una furnaan karaa una xidhnaan karaa wuxuu ku xiran yahay lagu stimulate ku xiran yahay wax dedejinaya ama wax mission ama mataqaanay sameynaya falgalka ayuu mataqaanay u baahan yahay gather channel-kan markaynu gather joogno waxaynu oranaynaa waxa ku jira gather-ka qaybo farbadan sida mechanical ligand iyo voltage mechanical habka uu gudbiyay ayaa ah mechanical stimulation iyadoo hab mechanical adeegsanaysa ay ku gudbiyay baa lagu yiri proteinadaasi channel-ka ah haddaba ligand channels haddaba habka uu gudbiyay qaybta ligand-kuna waxay u gudbiyaan qayb ah biochemical ahaan si waxay u gudbiyaan stimulant loo yaqaan biochemical ahaan say u galaan gudaha cell-ka baa lagu yiri haddaba kuwa voltage-kuna maxay yihiin voltage-ka iyo qaar kale voltage hab leeyahay ku gala voltage channel-ka ay ku galayaan ayaa hab electrical potential ayay ku galayaan baa la yiri mataqaanay qaybtan iyaguna voltage-ku haddaba hadaynu ku soo celino bal slide-kaas leak channel iyo structure channel-kii ma laba kala qaadnay structure channel-ku ma ornay habka ay ku galayaan baa la yiri ayonada yar Soomaa marka laba moosar kala qaadnay gather iyo leak iyo gather buu noqonayaa leak hada jeer iska furan isagoo wax stimulate ama wax dedejinaya faldejiyo haddaba
waxaynu soo kala qaadnay leak channel iyo gather channel. gatherku hadaba wuxuu noqonayaa waa mid mataqaanaayay markastii isagu xidhnaan karaa furnaan kara ayuu noqonayaa oo isagu wuxuu ku xidhiyo ku dibordhigareysan yahay baa la guuri stimuli ku dibordhigareysan yahay. Okay, waxaana ku jira la guuri mechanical ligand iyo voltage waa ku jira. Haddaynu mechanical soo qaadano mechanical stimuli baa yahay carin mechanical ahaan buu baa yahay ama didajin buu baa yahay. Ligand channel waxay ka hadlayno biochemical stimuli baa yahay. Voltage markaynu ka hadlaynana by electrical potential buu baa yahay. So saddexda hab mataqaanay gather ku kala baxay inuu maskaxda ku haysanin baa muhiim markasta leakna san hore soo sheegnay waa mid kasta markasta iska furan weeyaan. Okay, haddaynu ka socono borotiinka labaad baynu gali doonaa isagana peripheral ahaa kii hore haduu integral ahaa ku gudbiyay gudaha membrane-ka kana muxuu noqon doonaa baan leeyahay hadaba mataqaanay peripheral protein wuxuu noqonayaa waa proteinada kuwaas oo aan ka gudbin baa lagu yiri gudaha salka aan ka gudbin gudaha salka ma gudbaan kuwii hore waxay ku yihiin cagis. Okay, kuna function kooda muxuu yahay waa enzymatic badanaa way ka simeeyeen horta iyagu calaamado way ka simeeyeen marka in yar la eego waa enzymatic baa lagu yiri kuwani noosan hore soo sheegnay oo kuwa enzyme linker bay ka qayb qaataan wax isku xiran connection ka qayb qaataan control bay ka qayb qaataan oo wixii soo galay wixii ka soo baxaya mataqaanaa way control maadaama inuu gudbiyo gudaha oo ururiga iska joogan external iska joogan qaybta dibadda iska joogan waxay controlayaan wixii gudaha soo galaya. Okay, oo movement waxay mataqaanaa ay soo qaadi karaan gudaha sala ku baahin karaan maalin yeeli. Okay, haddaynu ka socono waa kan diagram look like this. Okay, markaynu ka hadlayno islahayn waxa jira laba protein la peripheral iyo integral kusanay muuqanayaan wakaas ka wada aragtaan dheer weyn wuxuu noqonayaa integral protein aan islahayn wuxuu gudbiyaa transferrin wuxuu gudbiyaa membrane-ka Soma wakaas okay, markaynu ka hadlayno isagana peripheral proteins-ka in lahayn kama gudbiyo kaliya wuxuu baahinayaa wuxuu controlayaa wixii mataqaanaa gudaha soo galay halka hadda imika ka soo galaysa wax oo mataqaanay waxay control kartaa baan yiri qaybta wixii gudaha soo galaya baa la guuri. Okay, wada aragtaa ma filaya hadaynu ka socono inka ku xiga diagram ku xiga isagana wuxuu noo sheegayaa intii aan imika soo qaadanay functionadoodii iyo mataqaanay faahfaahsan bombaskii waxa wada arkaysaan islahayn waxay gudbiyaan ayonada yar sida sodium iyo potassium wakaas bamka saw wax loo bagareenayo ka wada aragtaa ma filaya channelska small ioniska mataqaanaa wixii facilitate u baahan wanaga soo qaadanay labo soo kala saarnay ligand channel iyo gather channel islahayn ligand marka si iska filan yahay gather channel ku isagu marka mataqaanaa wuxuu u baahan yahay stimuli u baahan yahay ama wax arin u baahan yahay halka kale leak channel ku isagu aanu waxba uga baahnayn. Okay, haddaynu ka ku aragno channelski receptor baa jiraan soranahayn receptorkiina waa kana soo xusoo qabsanayeen markaas receptorka halkaas uu ku yaalo waxa uu soo qabsanayaa wixii loogu tala galay halka uu soo qabsanaya. Okay, halkana waa mataqaanaa linkerkii ama wax xiriiriyay habkii aanu ku aragnay ion connected halkana waa enzymatic oo how enzyme ahaaned buu ku shaqeynaya baa lagu yiri. hadaba waxay different functions ka baa lagu duwan integral proteins-ka six molecular categories way kala duwan yihiin baa lagu yiri mataqaanaa integral proteins-ku saan diagram-ka naga muuqato bombas channel receptor linker enzymatic and structures. Okay, haddana ka socono halka waxaynu ku soo dhamaynay wixii loo oranayay proteins oo soo kala qaadnay. Okay, haddaynu keenay saddexaad galno wuxuu noqonayaa carbohydrates. hadda waxaynu wadnaa mataqaanaa kii ugu dambeeyay ee saddexaad. Okay, waa short chains baa la carbohydrates-keedu waxay ka samaysan tahay lagu yiri protein integral protein oo ku gudbaysmeys oo glycoproteins ah ama mataqaanaa waxa sameeyo lagu glycoproteins ama glycolipid baa sameeyo glycolipid haddaynu aragno kulli sawirka soo socda inuu ka arki doonaa oo kuwa iyagu markaas iska dul joogtooga waxay dul joogaan good adherence waxay soo qabtaan iyagu markaas glycolipidka markaynu ka hadlayno glycoprotein ka hadlayno wax mataqaanaa cufcufan oo kale oo ka dhaxbaxaya baan leeyahay membrane ka dhaxbaxaya waa glycoproteins-ka waxayna soo kale ka samaysan yihiin wax la yaqaan polypeptide chain bay ka samaysan yihiin. Okay, sugar coat waxa sameeyo sugar coat oo gudaha salka ugu sameeyo loo yaqaan glycocalyx wax kale oo calyx la yiraahdo ayuu sameeyaa lagu yiri sugar coat.
waa sugar coat baa lagu yiri kan glycocalyx kana isaga waxa uu sameeya waa mataqaanaa waa sugar coat. Okay tan ka socono waa ka san ku arkayni oo kaas glycoprotein keen lahayn glycolipid lahayn wax duliyaal loo kala kaas darkiisa ma filayaan glycoprotein waxa soo ka samaysan yahay receptor genes. Okay dan ka socono waxaynu gali doonaa glycocalyx hadoo maxay tahay glycocalyx. Okay glycocalyx ma noqonay waa sugar coat ka samaysan qara conton nanometer wuxuu ka kooban yahay qayb oo isminis charge garaysan oo oligosaccharides genes linked covalent velocity proteins assemblies wuxuu ka samaysan qayb oligosaccharides means will make amount of monosaccharides bayan iyo sargin iyo qaybo mataqaanaa kullinka garaysan ama ku xidhan sargin oo harra ka istaa lagu yiri oo protein noqon kara ama lipid noqon kara dub lipid noqdo waa glycolipid dub protein noqdo waa glycoproteins waxa ku samaysan lagu yiri protein glycogen ku wareegsan glycosaminoglycans protein glycans wuxuu ku kooban yahay protein glycans muxuu yahay isla garanaa qorxo protein glycans wuxuu ku kooban yahay proteino kuwaas oo sameeya glycosaminoglycans oo ko sameeya lagu yiri protein glycans hadaba function ka hadii noqono glycocalyx maxay tahay waxay caawisaa inuu isku dhago cellku marka midka kale inuu ku dhago sidoo kale waxay caawisaa inuu isku dhago antigen-ka enzyme-ka surface gudaha cellka sidoo kale waxay fududeysaa lagu facilitate waxay fududeysaa cellka marka mataqaanaa oo isku dhagayo mataqaanaa example ahaan markii waxaynu oranay wuxuu caawinayaa inuu cellku isku dhago Soomaa tusaale ahaan baynu soo qaadaynaa spermta iyo egga markay isku mataqaanaa isku fiisgaroobayo oo kuwa markii soo doonanaya isku dhex galaan oo mataqaanaa isku dhagayo Soomaa interaction bay sameeyaan markaas waxa fududeynaya lagu glycocalyx waxa la yiraahdo sugar coat san ku soo tilmaamnay oo si mataqaanaa ahaanaya wax adu isku soo jiidinayo si la isku mariyo kale wax mataqaanaa sabiil oo kala oo isku soo jiidanaya labada mataqaanaa egga iyo spermka tusaale ahaan. Okay hadaynu ka sii socono oo sawirkeeni si guda galno wada aragtaan kulay sugar gene-ka glycolipid-ka ay ka sameysnaayeen si fiican sawirkan kulli hore ka fiican peripheral proteins kana oo peripheral ka sheegaynay integral-kiina oo kulli wadarkiisiin ka dhex gudbay wadarkiisiin. Okay aynu ka sii socono hadaba waxaynu soo galnay marka waxaynu ka soo baxnay mataqaanaa saddexdii qaybood waaweyn fatties proteins aynu soo dhiganay iyo sidoo kale mataqaanaa waxaynu soo dhiganay carbohydrates aynu soo dhiganay. Okay iminka hadana waxaynu gali doonaa transport across the cell membrane gali doonaa habka ay cell membrane wax uga kala gaadidoobaan cell membrane hadaba wax uga kala gaadidoobaan bal wax la qiyaas ahaan saddexdan hab inuu mataqaanaa wax cross garoobaan ama ka gudbaan labada hab baan kulli ugu raacsan labadan ugu horeeyo caasan active transport iyo passive iyo mataqaanaa ugu caasan isagoo kan fascicular-ka badan oo soo gala isagoo waxyaabo kala loo adeegsada basi hadayna daba saddexdan ba ka soo qaadano orano si detail madawna course ka dhigayno saddexdan kala qaybeynaano waa qayb passive transport oo waxay u baahan tahay diffusion iyo osmosis bay u baahan tahay iyagu means energy u baahan tahay wax mataqaanaa in wax qaado u baahan tahay qaybtana waa qayb active form markasta mataqaanaa iyada iska active kaliya hab koobaad iyo hab labaad marta primary iyo secondary maraysa baa lagu yiri hadhow baan si detail ugu gali doonaa mid kastaba diffusion kan oo qeexi doonaa osmosis oo qeexi doonaa waxay soo kale qeexi doonaa balse waxa muhiim ah in keenan si ogaano waxay yihiin diffusion iyo osmosis kan. Okay active transport hadii soo gaarno masaan hoos sheegno waa qayb primary iyo qayb secondary hab hore iyo hab dambe uu ku gudbayaan iyadna waan si kala saari doonaa insha Allah koorastina dambe ashraantina dambe insha Allah kan saddexaad aynu soo qaadanayna fascicular transport isagan fascicular transport ka waxyaabaha large ku gudbaan inuu qaadan doonaa hadhow soo lamid kasta mid baynu dul istaagi doonaa si deeply endocytosis exocytosis trancytosis faa'iido saddexdan hadaba gudbaan iyo kuwa saddexdan wax soo xusgalayaan endocytosis oo habka mataqaanaa endocytosis habkii gudaha sidoo xisalka ugu soo galayaan iyo exo habkii wuxuu soo bixlaysan labada markii si isku xakis labadana kan waxay noqonaysaa trancytosis waxay noqonaysaa waa in and out waa habka ay mataqaanaa wax soo galay wax nooga baxaan hadana u soo galay hadana nooga baxaan may noqonaysaa inkastoo hadana mataqaanaa iyadoo la xiriiro mataqaanaa waqtiyada hooyada iyo ilmaha yar ay ku wada xiriiraan trancytosis kan
okay hadaynu ka socono